haddii kale annagaa imananaba oo ku qarxinana wallahi annagaa imanana oo ku qarxinana adibeen ay dhali weeyaan shibcaan ninka la yiraahdo tug shibcaan daaci shibcaan la soo baxay naagaha daaci la baxa miyana daaci bilan arag daaci bilan iyo daaci shibcaan waa isku darajo weeyi naag weeyi daaci shibcaan ninka sida hablaha isku cadeeyay ee laba afartaad iska kiciyay ee meelaha carab dalab la soo fadhiista laga yeeli maayo cashuurta subeera wal haday macaan tahay ragii lahaaba le waa lagu diiday cashuur damba lagu siin maayo deegaankaaga cashuur ka soo qaad ama adigu harti la dagaalan wax dambo la nagu beer la xawsanaya wallahi baana jirin billahi baana jirin subeera wal waa toosay guri kasta waxaan ku TV laga dhageystana waa sameynana kuwan TikTok ta joogo wallahi tifaftiraya ayibaan ku soo qori horyaal TV ba soo kacay ku soo qoro ma hebel baa ay tamay kan kala ay tamay nabad ka baa ay tamay bilad maan baa ay tamay boqor buur madow baa dadka hooyadood caaya reer dhanbu boqor u yahay maxaa aniga boqornimada ii diiday markaa in boqor u noqon waay ila waaba aybe waxay ka dhiman cumaamada iyo ishaalka un baa iga dhameen waabana aybe anigu hooyo macaaye kuwii hooyada caayay baa reer boqor u ah iyagoo calool darbi leegso walwaalaya bujuu baja af lagu kala sheekeynaya gacalo oo marka la is qabto ereyada caan baxay ee waxaan ku laxanka la saari karayo nabaday waliba carabka lagu dhijinaya nabaday yaa la hadlaya harti war nimankii dagaalami jiray ee gabayada cantarbaqashka sheegi jiray haddaan number fadhiyin reer isaaq bogama maaleen haye nimankii halkan soo fadhiyaan harti hubna waa sitaan raamaha laa ee arigiina waxaan ku arigi galbeed ka dhameeyay iska celi wallahi hadda taariikhda isaaqa bariga hadda daraasadayso oo research ku sameeyso waxaad ogaanaysaa mar kasta oo la dilo oo la bahdilo oo rag laga laayo ergey dirin jireen ergadana dumar bay ku diri jireen waxaan ku dhahay magarasa u bixinayaan gudub reeb iyaga dumar ba laba sii jirinba wala shaabugeyn jiray wallahi taariikhda waxa la hayaa dumarka dhulbaanta xataa lama siin jirin qoladan 40 collection ee waxaan ku cuqdada isla dul fadhiya jinni saaran hablaha lama siin jirin dhulbaanta hablaha dhaadheer ee qurqurxda badan leh iyo sida Salma Awood oo kale u eg wallahi lama siin jirin wala shaabugeyn jiray garxajiskan waxaan ku qoladana Habar Yunis lama siin jirin adeed miyaad arag ninka Cabdi Bacaluul la yiraahdo ee iskuulada lagu dhigi jiray miyaad arag Habar Yunis buu ahaa ee gaabna gabadha suldaanku dhalay suldaanka dhulbaante ka doonay geel baa la xaadlehe wax kale libin ma hooyaane markii la mahoobiyay inaan suldaan dhalay buu doonay markaasay dhulbaante waxaan ku tiqtiqsadeen ugu dambeyntii markii la mahoobiyay geel iyo loo yaadhiba laga dhameeyay ayaa waxa lagu yiri sodohda waxaad u keentaa inta reerkii inta ku soo noqday baa wuxuu yiri geel baa la xaadlehe wax kale libin ma hooyaane 60 ari iyo qaalin bay iga laaleen waa la bahdili jiray waa la caay jiray wax yaro gaaban oo ciribsan buslaawa sida ka shucayb oo kale leeg ee xirigaaba jooga markuu guriga yimaado mooya guriga la sii garab dhigi jiray wala oran jiray mooya aad leegtay bahdilka noocaasa humiliation dhulbaanta wala yaqaana wallahi oo ilaahay isaga ka sareeya gabdhe lama siin jirin ninkii ugu horeeyay habar jecel ahaa naag dhulbaanta gursida xataa wala yaqaana buugti ku qoran wala yaqaana adeebad kuwii baba the four collections kuwii baba waxa ku bujuubaja walka laga sheekeeyaa haddii subeera la oran jiray way aamusan yihiin xilkan nu haynaan la aamusnayn xil bana dhibayay xil dhibeen baanu hayn hadda xilna ma hayno allahumma la beeg waanu taaganahay wax kastaanu ku hadli karnaa waaba noo xalaalba waa noo xalaal waliba deegaanka aad u soo shaqo tagtaa waa deegaankayaga ee aad joogtaan deegaankaad wax ku noqotay waa deegaankayaga ka ganacsigoodii ka furayay waa deegaankayaga ciidan galayare ayaan ilaahay ku tusin aroortii mina subaxda wiil kasta oo 12 jir ah hooyadii daasad liido intay u soo dhiibto ay waxay ku tiraahdaa dooxa ka talawo daanti waa daanta subeera wal yaa arsaaq yaa fataah guriyaha lagu gargaraacayo gadhow wala yaqaana daasad liidooda dhabarka lagu sito wala yaqaana may baanday nabarada lagu kicinayo oo lagu damqaya nabarada waa lagu sheegaya waliba may baanday subeerool anigu waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta Soomaaliland inaga joogta waxa weeyaan campaign-ka ka hadhina macaarid baynu nahay macaarid inaynu nahay waa in lagu sheego lagu celceliyo waliba ajar baa kugu soo kordhaya shaabuga la dhacdo oo ku tiraado hartibaanu ku garba duubaynaa inta meel dhaweyd dacaydinayo miltan iyo waxa mooyaan iyo nabadka mid waaye
habeen qolka aan ka degayoon wuxuu ka sii dhageysinayay wuxuu ka sheeganayay qolada SSP iyo wax la yiraahdo SSP dagaal maba qaadaba dawarlayaasha iyo harqaanlayaasha ay ka soo tashan dharka militariga qalam jiran qurba joogtooda ku dhacayaanba gaar hayame kii cali barre lacagtii waa la muhoobi kii taraglaha ee iskargooda wadi jiray qaar ba muhoobi lacag noo soo dir oo dad waxaan ku cirka bakoorada iska haya Muuse Biixigii waxaan ku uri bariiska iyo baastada iyo rasaasta iyo hubka iyo qoryaha saa u dulhayay ee Maxamed Kayn maalin kasta garkiisa weeyay Muuse Biixi u bariyay Muuse Biixi meeshii ka tagay 2 bilood isagoo maqnayn waxa idin ku dhacay dawada ka garanaya baaqna halka waxaan uga dirayaa ciidanka madaniga ee bari naga jooga hata ku qaranka ka hadli maayo ciidanka madaniga nabad kaabna waa jooga halka niman Ciise Muuse halka waa joogan anu kuwa Saacid Muuse iyo kuwa Ciise Muuse intaba walaaladay kuwa bahan Muuseba laakiin nabad kaabna si gaar ah ula hadlo ha yiraahdo war meeshaas ka soo baxa ku dhimanine maxaa ka yaala eriga baa joogtaan oo jiidali baa joogtaan oo boqdarkayn baa joogtaan oo qorilugud baa joogtaan war maxaa meeshan idinka galay miyaa la idinku sixiray maxay idinku meermeeriyay war meeshan nimanka dhulbaanta waa ka ilaheleen jaamac siyaadi iyo qoladii maxaa loo jiray Axmed Garaadna ma hayne cagafun baabay soo qaadanayaan mina subaxda ummad dhan oo waxaan ku cagaf la gelinayo reerkan daaha loo rogay ee dubihii ilaahay daran door ugu dhacay maxay idin dul dhigay idinka war ilaahay sawirayda ka dhigay ka soo baxa meesha oo dhulkeena shaqo taalaay oo loo soo tahriibay kaalay oo dhulkeena ka shaqeeya shaqo ilaahay waa idin siinay abaal iyo ajar laguma qabo 35 sanadood baynu futada waxaan ku wariyay isaaqa bariga aynu harti ka ilaalinana war godab dambe gali meeyne nimanka harti waxba isku ma haynee deehay iska celiyaan miyaan rag ahayn awalkii hore hadii waxaan ku wariyay habla meesha la safi jiray waagi waxa soo xasuustay baa qolada la oran jiray Kristiyaanka ee Saudi Arabia degneed marka saxaabaha dagaal ku dhacayo dumar bay soo safi jireen baa leeyahay carabtuna wax ka naaga jecel si ma garanaysaa dee asxaabta nabiga kaleey salaatu salaam la socotay loo jeediyo dumar aad u burburan kuwa dad qaadka ayaa halka waxaan ku dhicin wixii dhulbaanta fahan suuq bay kugu soo ridayaanba meeshii habeen dawlad waxaan ka arkay mid la yiraahdo Xasan Deynabo ayaa wuxuu yiraahdaa suuqii baan baayacayo waa 150 carrooda Facebook soo arag suuqii waanu baayacnay dhulbaanta halku ka keenaa lacagta $150 weeyii ninka la yiraahdo Dahabshiil ganacsigiisu Puntland buu yaala oo Muqdisho yaala oo Kenya yaala oo Ethiopia yaala intaba daarood badega waa la arkayaa oo daarood ku arkayaan duu weydiin iibiyo subeer walkii waxaan ku gacmaha sida kugu siday ee madaxa saa kugu salaaxayna 24 saacadood bad sidii islaantii qaafa xamaal ee waalnayda hargeysa joogi jirtay ee shiid soo guranaysa dhagax halka ka soo shiidaysa sabab laan badka dadka u shiidaysa waxa weeye dadku waxaan u sheeganaa subeer walba inay kala gartaan nacabkooga iyo in istixooga inay kala gartaan weey asxaan dambe inaanay waxaan ku dhaqmin sidii qoliyo ogaadeenka ee sponsorka Mareykanka loo xareyn jiray ee ninka gaalkii iska talaabta casida uga marin jiray iska talaab cas waa inaynu saa uga marino waxa la waxay soo dalbadaanba xabaaliya ninkeed loo kala tag bari waxba nagama yaalaan anaga waana ka imananaa dhulkayaga ilaashananaa isaaqnimo dambe la nagu dagi maayo Somaliland dambe la nagu dagi maayo banaanka cidladan rushaysanay waran baanu ka taagnaa sidii warankii shira dheeree berbere ka taagnaa bartaas uu noogu taagay banaanka cidlada ninka nala jooga reeraha nala joogaana waa inay si aadaab iyo akhlaaq leh waa inay noola qadeeyaan al-asluub hadii asluubta ku dhaqmi waayaan waa idan tarxiilanaaba awal baa hore waxa loo oran jiray Somaliland waxa laga tarxiilaa garxajisweyne iyo raxan weyne Cabdiraxmaan kaas waa gacan ku gabad bakaylaha ay caruusada deegaan subeer awalay madaxtooyada ku taala deegaan subeer wali uu jooga waa gacan ku gabad weey telefoon buu ku garaacay baa lagu leeyahay Muuse Biixi Abeen Daweed sheegle laga baqay Muuse Biixi Cabdi Xilli talaaba dheere Muuse anigu ciidamada lama taaban mid kale mid baaban ilaawayba ninka la yiraahdo waxa ka shaqeeyay oo arinta kula jiray ninka la yiraahdo Ismaaciil Aadan Ismaaciil Faqash Ismaaciil Hunguri ninkii meelaha ka oran jiray Cabdiraxmaan baa wax la cuni karaya isaga wax la boobi karaya isaga gacanta wax la gelin karaya iimaan laawe imise lagu siiyay xilna lagu magacaabin ilaahay xayada ka qaado anagu saasaan u leenahay Ismaaciil Faqasho xilligii waxaan ku dhintay talada la qaadanayay hebel mujaahid waad ka qaday 70kii baad ku sii socotaa ilaahay toobada ha ku sii jiye Ismaaciil Faqasho markaasaan in adeerkaaya halkaas ka firqoolaya baad leedahay guulaysto lacagtay noo ayr guulaysto ma maqlaysaa war lacagtay noo ayr TV weenu furananaay
haddaad dee lacag haysa guulaysto sheekh tv wuxuu baynu salaamayaa furanaa siidaa maanta hadda xiisadda maanta igu horreysay oo salaamayaa war waan ku salaamaya tv baynu siidaa furananaa siidaa howdhe tvga tiifiyo badan lacagta bay kusoo noo furan qarqarin kara tiifiyo badan bay noo furan siidaa qaar baa furan wallahi waa la furayaa wallahi waa la loo furaya billahi furanaa waa la furayaa waynu furanaa kuwo badan baynu furanaa ha marka dee sii wata waaba ka baxay baa sii wata abwaan baa ku aad iyo sii udhiw abwaan